الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سورة الفرقان تفسير كيادنا بلوناي آياتها ugu horeeya ayaynu markaa fasirnay aayadda tobnaad Allah wuxuu inoo sheegayaa تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وحبركديسي خيراتكيسو فربتين إله هدو دونو كو يلي وحك خير بدن وحي شيغيان إلا وحي يراهدين ما خسند لغو طور ما يباركو سغناتو أد وحك عنتو marka hadduu ilaahay doono wuxuu ku yeelayaa wax ka khayr badan baa waxay sheegayaan jannaad buu ku yeelayaa ay markaa sabaynayso hoosteeda durdarradu ay sabaynayaan waxaanu ku yeelayaa qusuur iyo guryuu ku yeelayaa looma jeedo fi laakhira waxaa loo jeedaa fi dunya waayo shartaa halkan lagu xidhay hadduu ilaahay doonuu kuu yeelayaa ama aakhiro ilaahay waa u yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam jannaat iyo qusuurba waa u yeelay waa qaطci taasi laakiin in shardiyaa la geliyey in shaaa jacala laka khayran min daalika inta shardiyadana waxaa loo isticmaalaa haaliban shay aan muxaqaqu lwuquuc ahayn shay dhicitaankiisa u dhacayaa aanu ahayn mid markaa qaطci ah ee ixtimaal ku jiro yacni marka ayaa inta shardiyadaa loo isticmaalaa saas aawadeed ayaa inta shardiyadaa la geliyaa shayga mumkinka ee suuragalka ah iyo shayga mustaxiilka ah mid walba walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk lain ashrakta nebi inuu shirki la yimaada ma suuragal ahaa shay mustaxiila inta la geliyey inta shardiyada qul in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin labada tafsiir aayadda ku sugan intu inay shardiyo tahay iyo inay naafiye tahay waa laba tafsiir in la yidhaahdo in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin intu waa shardiyo ama waa naafiyo waa laba tafsiiroo kala duwan tafsiirka shardiyada marka lagu socdo dee shay mustaxiilan dhici karin baa la geshay ashyaada mumkinka suuragalkaana waa dhacdaa inta in la gesho laakiin muxaqaqulwuquuc aan ahayn ee aqbali kartaa inay dhacdo iyo inay dhicin mid walba taasoo ka duwan idaada oo idaada shardiyada ayada waxaa la geliyaa shay muxaqaqulwuquuca ah oo ilaaba ilaa dhacaaya laatii luqsiga laga dhigay sallim calaa shaykhi nuxaati waqul lahu cindii su'aalun man yujibhu yucadami ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman waida jazamtu fainanii lam ajzimi mawdicu shaahid ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman haddaan shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminaayo waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi haddaan wax jasmiyana oo wax gooyana waxba ma goyn buuhi waxba ma jasmin waa luqsi luqsiguna khilaafu daahir buu iskaga dhisayey waxaa halxidhaalahaasi ku saabsanaa in iyo idaa ashardiyataan in iyo idaayo labadaba shardi loo isticmaalo ayuu ku saabsanaa ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman haddaan ka shakiyo waxaan shardiga ku xidhay inuu dhacaayo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo oo jasmigii icraabta ahayd buu markaa uga jeedaa oo inta shardiyadii waa jaazimatu lficlayn waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi haddaan wax jasmiyo bimacnaa wax qatciyo shaygaasi inuu dhacaayo aan shardiga ku xidhay ilaaba ilaa waa dhacayaa baaqan maayo haddaan leeyahayna waxba ma jasminoo jasmiga icraabtaa lama iman waa idaada ayuu uga jeedaayo yacni markaa idaadu jaazimo maaha ama daruuratu shicrun baa loo isticmaalaa inay wax jasmisay hadalka kale nasriga caadiga ah waxba laguma jasmiyo ama jaazimoba maaha waa yahay markuu in ku weydiinayana in buu geliyey markuu idaa ku weydiinayana idaa buu geliyey ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi marka mawdicu shaahid aayadda waxaa ku sugan in
in shaaa jacala laka khayran min dalika hadduu doono wuxuu kuu yeelayaa wax sidaa ka khayr badan. marka dee waa shay markaa yacni markaa suuroobaya oo bimacnaa laga shay muxtamila inuu kuu yeelo waa hadduu doono. marka maadaama saasay qaalib u tahay in aakhire looga jeedaa sax noqon mayso, waayo qaطcan baa aakhire ilaahay ugu yeelay jannaad iyo qusuurba. maxaa loo jeedaa marka adduunyada laga tilmaamaya? hadduu ilaahay doono adduunyada wuxuu kuugu yeelayaa wax sidaa ka khayr badan ay sheegayaanoo beero durdura leh ayuu kuu yeelayaa iyo guryo waaweyn. nabigana calayhi salaatu wasalaam waa la doorransiiyey, isaga ayaa doortay inaan markaa adduunyada faraha badan le iyo xoolaha badan la siin. waxaa nebiga la doorransiiyey sida xadiiska saxiixa ku timi inuu markaa noqdo rasuul boqor ah iyo rasuul addoona inuu noqdo ayaa la kala doorransiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. fakhtaara an yakuuna cabdan rasuula, wuxuu doortay addoon rasuula inuu noqdo ayuu doortay, boqor inuu noqdo rasuul ama dooran. waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan dooni lahaa buuro dahab iyo fida ah ayaa iraaci lahaa aan heli lahaa. ya buuro dahab iyo fida ah, laakiin isagaan doonin nebigu calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nebigu doortay inuu markaa risiqiisu markaa uu noqdo midaan markaa yacni xoolaha faraha badan la yacni markaa midaanu haysan ee addoon rasuula inuu yahay, risiqiisuna kafaaf noqdo ayuu markaa doortay. allah waxau yidhi tabaaraka aladii waxaa khayraadkiisa iyo barakaadkiisu fara bateen alladii kii allah baa loo jeedaa in shaaa hadduu doono jacala laka adiga kuu yeelaya khayran min daalika madkuurka la soo sheegay gaaladu sheegeen, aw yulqaa ilayhi kanzun aw takuunu lahu jannatun yaakulu minha. khayran min daalika taa wax ka khayr badan, arrinkaa wax ka khayr badan inuu kuu yeelo hadduu markaa ilaahay doono waa kuu yeeli lahaa. jannaatin khayran ka bedelo jannaatin beero inuu kuu yeelo hadduu ilaahay doono inuu kuu yeelo waa kuu yeeli lahaa. jannaatin beeruu kuu yeeli lahaa khayran ka bedel. jacala laka jannaatin baa markaa macnuhu dhacaya, ilaa khayran bay beddel ka tahay. jannaadkaas beerahaasoo tajrii ay yaacayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru durduradu ay yaacayaan. wayajcal laka wuxuu kuu yeeli lahaa qusuuran guryo ayuu kuu yeeli lahaa. wayajcalu iyo wayajcal labadaba waa la akhriyo waa laba qiraa'o sabci ah. maxaa loo jasmiyey? waxaa loo jasmiyey jawaabu shardiga oo maxallu jasmo taalla jacala maxalkay taallaa maxallu jasmi ah, ila waa jawaabu shardi ah. marka maxalkaasaa lagaga cadfay, maxalkaasaa lagaga cadfay. jacala marka hore dee iyadu markaa ficil maadi bay ahayd, ficilka maadina waa mabni. shayga mabnigiina hadduu markaa waxaa weeye u noqdo maxal icraabeed hadduu dego xagga maxalkaa laga icraabaa, xagga maxalka ayaa laga icraabaa. ila icraabtu waxay u qaybsantaa lafdi iyo taqdiiri iyo maxalli bay u qaybsantaa, masalatu anwaac. icraabta inay noqoto icraab lafdi ah iyo icraab taqdiiri oo lagu qadaraayo iyo icraab maxalli oo xagga maxalka laga icraabayo, xagga maxalka laga icraabaayo. marka wayajcal jacalaa lagu cadfo jawaabu shardi ah, saasaa loo jasmiye. qiraa'ada kale rafcadu haddaba maxay noqonaysaa? wayajcaluu laka qusuura waa qiraa'o kaloo sabci ah. qiraa'adaasna waxay noqonaysaa laba wajaa ku bannaan in la yidhaahdo iyaduna markaa waa ku cadfan tahayoo jawaabu shardigaasay ku cadfan tahay. iyo in la yahay waa isti'naaf, waa jumlo cusub. istinaafkaanu marayaa jalaalaynku marayaa iyo culamo kaleba, laakiin waxa fiican cadafkaa fiican, cadafka ayaa fiican. hadday markaa jawaabu shardi lagu cadfay
maxallu jasmo taalla maxaa loo rafciyo wayajcalu loo yidhi waxay bacdu ahli cilmi yidhaahdeen jawaabu shardigu hadduu mudaaric noqdo waxa bannaan in la rafciyo iyo in la jasmiya labaduba bannaan oo in la jasmiye garanaye in la rafciyo xaggee laga keenay waxaa laga keenay maadaama icraabtii ay ka muuqan weyday maadigii markay ka muuqan weyday taasaa saa'iq waxay ka dhigtay in mudaariciina waxa weeye markaa la rafciyo lafdigiisa oo isagana ayna ka muuqan waatuu ibnu maalik yidhahdo wa bacda maadin rafcuka aljaza xasan waa ka yidhaahdaa maadi dabadii bimacnaa maadi shardi dhacay dabadii rafcuka aljaza xasan jawaabu shardiga inaad markaa rafcisaa waa wanaagsan tahay waa wanaagsan tahay markuu yidhi uma jeedo ta kale ma bannaana wa axsanu minhu marka in la jasmiyaa ka fiican laakiin tanna waa fiican tahay buu tilmaamayaayo siday bacdu yidhahdeen daruuratu shicri bay ku gaar tahay markaa kuma gaar ahae waxa weeye way markaa bannaan tahay calaa kulli xaal waxay noqonaysaa in lagu cadfo inay markaysagaa fiican tahay yacni marka ay noqonayso bal kadabuu bisaacati wa actadnaa liman kadaba bisaacati saciira bal kadabuu ka soo guurtaase way beeniyeen gaaladii bisaacati saacaddoo qiyaamada bay beeniyeen wa actadnaa allah wuxuu yidhi waa diyaarinnay liman kadaba bisaacati cidda saacadda beenisay waxaan u diyaarinnay saciiraa naar olol badan baan u diyaarinnay waa waciidu loogu goodiyaa qiyaamada ciddii beenisaa waa gaaloobays zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu yacnii gaaladii waxay sheegteen oo markaa ay ictiqaadiyeen ama maleeyeen inaan la soo bixinayn marka cidda sidaa u qabtaa waa cid gaalo ah hadday qof yidhaahdo arwaaxdaa la soo saarayaa jeedhka la soo bixin maayo oo lama soo celinayo waxay ka dhigan tahay qiyaamadii oo la beeniyey ka dhigantahay yada lafteed waa gaalnimo idaa ra'athum min makaanin baciidin samicuu laha tagayudan wa zafiira laqbadii koowaad kollay waa laqbaynaye ru'yada ama aragtida waxa loo tiiriyey naarta lafteeda saciiraa loo tiiriyey marka daahirka aayaddu waxay tilmaamaysaa inay naartu wax aragto marka gaalada markay aragto oo meel fog ay ka aragto iyadoo ka fog ama iyagoo ay ka fog yihiin samicuu lahaa tagayudan wa zafiira aragtidana waxaa loo jeedaa xaqiiqatan inay wax arkayso mufasiriinta qaarkood waxay mareen inay aayadaha macnahan oo kale sheegaya inay awilaan oo daahirkeeda ka leexiyaan dabeedna ay yidhaahdaan iyadu wax ma aragtee waxaa loo jeedaa malaa'igta khasanada ah ee wax ku cadaabaysa ee furaheeda haysaa ayaa arkayaa laga tilmaamaya marka ashyaadan marka waxa weeye hadalkeeda iyo aragtideeda iyo yacni markaa sawdkeeda iyo waxyaalahaasoo dhan yacni maqalkeeda iyo kullu daalika markaysaga waxay doonaan inay awilaan laakiin qowlkaasi sax ma aha ee sida ahlu sunnati waljamaaca ay qabaan waxa weeye in markaa nusuusaha ka warramaya iyo aayaadkii axaadiista ka warramaya naarta ka warramaya ee sheegaya inay hadasho inay wax aragto inay markaa waxa weeye yacni markaa cadhooto kullu daalika inay xaq tahay sideeda in loo rumeeyana tahay waxay soo gudagelaysaa qeybka la rumaynayo say u dhici karta ha odhan wallahu calaa kulli shayin qadiir allah wax walba waa awoodaa saas aawadeed yacni qeybkii laynoo sheegay waxyigii umuuraha qeybkaa ka warramayey ee nebiga lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam baa saa sheegaya halkan allah wuxuu sheegayaa inay wax arkayso aayado kale allah wuxuu sheegayaa inay hadlayso wa taquulu hal min masiid naartu waxay tidhahdaa wax lay kordhinayaa ma jiraan ha lay kordhiyo ma buuxsantay marka lagu yidhaahdo way maqlaysaa waana jawaabaysaa allah baa wuxuu sheegay inay odhanayso hal min masiid wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam naarta iyo jannadu inay markaa waxaway doodeen
ixtajat iljannatu waannaar xadiis saxiixa ku soo arooray hadalladii ay isdhaafsadeen ay isku yidhaahdeenna nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ishtakat innaaru ilaa rabbiha naarta ayaa rabbigeed u cabatay oo waxay tihi rabbigayow qaarkayba qaarka kaluu cunay anigiibaa is cunay markaa waxaan cuno waayey fajacala laha nafasayn wuxuu ilaahay u yeelay laba neefsi buu u yeelay oo ay neefsanayso qabowga ugu daran ee adduunyada a ku helaysaan waa qabowgii jahannama yacni zamhariira waxa weeye qabowgeed weeye waa neefsi markaa naartu neefsatay ila qayb qabowo qabowgeedu aad u daran yahay iyo qayb aad u kulul bay labada noocba leedahay ay leedahay wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kulka ugu daran ee adduunyada a ku heshaan waa neeftii jahannama yacnii labadii wakhtiya loo yeelay inay neefsato ayay markaa ka mid tahay wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska tirmidiga yakhruju cunuqun lijahannam waxaa soo baxaya qoor ay jahannama leedahay lahu caynaani tubsiru bihima qoortaasi laba indhood ay wax ku aragto ayay markaa leedahay wa lisaanun tantiqu bihi iyo carabay ku hadasho markaasay waxay tidhahdaa innii wukiltu bialaas saddex baa lay xil saaray yacnii saddex loogu talagalay inay ciqaabto ayaa markaa waxa weeye markaa dabeedna ay sheegtay xadiiskana tirmidiga ayaa soo wariyey calaa kulli xaal adilada iyo adilada kale mawduuca ku soo aroortayba waxay caddaynaysaa naartu inay wax maqasho inay wax aragto inay hadasho inay cadhooto aayaadkanna waa sheegayaan samicuu laha tagayudan wa zafiira takaadu tamayazu min alghayb aayad kale allah wuxuu yidhi waxay ku dhowaato ku sigatay cadho daraaddeed inay kala qaraxdo aad iyo aad bay u cadhaysan tahay jinka iyo bini aadamkan yaryar ee ilaahay caasiyaya ee ka kufrinaya bay ka cadhaysan tahay ilahay dartii bay u cadhoonaysa waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jahannamo in aakhire la keeni doono laha 70,000 zimaam jahannama la keeni doonaa 70,000 oo hoggaanyadoo leh maca kulli zimaamin 70,000 malak hoggaan kastaba waxa weheliyo bimacnaa haya 70,000 oo malak yajuruunaha way jiidayaan marka waxa weeye waxay sugi la'dahay inta markaa lagu soo ridayo dadkii marka waxa weye ilaahay caasiyey ka kufriyey inta lagu soo ridaayo ayay sugi la'dahay oo laga hahayaa saas aawadeed lama awilayo nusuusta iyo adilada sidoodaa loo rumaynaya inay naartu wax aragto inay wax maqasho inay hadasho inay cadhooto yacni kullu daalika waxa weeye waa la caqiidaynaya waa la rumaynayaa sida marka waxa qur'aanka iyo xadiiskuba ay u sheegeen baa loo rumaynaya loo caqiidaynaya maxamed bin aamin ashinqiiti tafsiirkiisa adwaa'ulbayaanka macnaha waa caddaynaya waxaanu markaa tilmaamayaa dawaahirta kitaabka iyo sunnada ee umuuraha qaybigaa sheegaya dawaahirta kitaabka iyo sunnada culammadu inay ku ijmaaceen dhammaan ahlucilmiga hadalkooda la ictibaariya inay ku ijmaacsan yihiin daahirkooda in lagu xambaaraayo maan daahirkooda in laga leexinayn ilaa lidaliilin yajibu arujuucu ilayh daliil ay waajib tahay in loo noqdo mooyaane si kale inaan looga leexinayn yacni nusuusaha iyo aayaadka yacni dawaahirtooda culammaduna sidaa ku ijmaacsan isku waafaqsan yihiin allah wuxuu yidhi idaa ra'athum min makaanin baciidin idaa ra'athum markay aragto naartu kuwa qiyaamada beeniyey ila waxaa ka horreeya bal kadabuu biاsaacati wa actadnaa liman kadaba biاsaacati saciira idaa ra'athum markay aragto naartu kuwa qiyaamada beeninaya min makaanin meel ay ka aragto baciidin fog oo iyaga ka fog waxaa laga soo naqliyey bacdu salaf inay yidhaahdeen 100,000 masaafo loo socdo ayaa makaanka baciidkaa laga tilmaamaya samicuu waa maqlaan
lahaa xaal markaa taqayudku lahaa iyada u sugnaaday taqayudan cadhay u maqlaan waxaa loo jeedaa yacni markaa gurxanka iyo markaa waxa weeye sawdka cadhadu leedahay cadhay la gurxamaysaa wa zafiiran iyo hiinraag bay maqlaan zafiirka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa codka dameerku markaa soo tuuro yacni laba cod oo zafiir iyo shahiiq buu leeyahay midna codkuu soo tuurayaa midna dib buu u jiidayaa marka ka uu soo tuurayo ee hore waxaa la yidhahdaa zafiir baa la yidhahaa zafiir ayaa la yidhaahdaa ka uu dib u jiidayana waxaa la yidhaahdaa shahiiq baa la yidhaahdaa labadabana waa lagu sifeeyey naarta wa idaa ulquu marka lagu tuuro gaaladaas minhaa xaal makaanka soo socda minhaa naarta ka mid yahay makaanan meel lagu tuuro meeshaasoo dayiqan cidhiidhi ah muqaraniina xaalay xidhxidhan yihiin oo gacmahooda iyo qoortoodu isku xidhan tahay oo isku katiinadaysan tahay ama isku silsiladaysan tahay dacaw waxay u yeedhaan hunaalika goobtaas waxay u yeedhaan meeshaas ama hunaalika goortaas waxay u yeedhaan oo darfu makaankii laga dhigo darfu zamaan loo fasiro asalkeedii in loo daayana dhib kuma sugna dacaw waxay u yeedhaan hunaalika waxay u yeedhaan meeshaas hubuuran halaag bay u yeedhaan markaasay leeyiin halaagayagiyo uu noo kaalay wakhtigaagii baa la joogaayo halaaggii bay u yeedhyeedhanayaan waayo asbaabtiisii baa soo xaadirtay laa tadcu lyawma yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa laa tadcu lyawma maanta ha u yeedhannina hubuuran waaxidan halaag keliya ha u yeedhannina halaag keliya ha u yeedhannina wadcuu waxaa u yeedhataan hubuuran halaag kasiiran fara badan u yeedha bimacnaa waxa weeye cadaabo badan baa idin haleeli doona marka cadaabku waa noocyaal badan yahay marka hal halaag keliya ha u yeedhannina iyo hal hooge yacni hoogag badan iyo halaagyo badan u yeedha soo ma xel dheeraansha badna haddii markaysagaa qofku halaagyo badan u yeedhanayo iyo hoogag badan hadduu u yeedhanayo hadduu mid keliya u yeedhanayo waa kale xeel dheerta hadduu mid leeyahay hooggaygaay ama halaagaygaay oo midna uu leeyahay hoogagaygaay ama halaagyadaydaay dee waxa weeye waa sii kala darantay soo ma qul adaalika khayrun am jannatu alkhuldi alatii wucida almuttaquun qul waxaad tidhaahdaa adaalika khayrun makaa la soo sheegay oo ah waciidkaas iyo goodigaas iyo halaagaas khayrun ma isagaa khayr leh am jannatu alkhuldi mise jannada waaritaankaa khayr leh allatii taasoo jannadaasaa laga sifaynayaa wucida almuttaquun ay wucidaha almuttaquun loo ballanqaaday kuwa ilaahay ka baqanaaya kaanat lahum jazaa'an wa masiiraa kaanat lahum waxay ahaatay markaa jannatulkhuldigu lahum jazaa'an abaalmarin bay iyaga u ahaatay wa masiiran iyo meelay u noqdaan bay u ahaatay muttaqiintaasi wax lagu abaalmarinaayo ayay u ahaatay oo ilaahay cilmigiisa uu ku ogaa inuu ku abaalmarin doono iyo waxa weeye markaa masiir ayay u ahaatay meelay u noqon doonaan lahum fiiha maa yashaa'uun lahum waxa u sugan fiiha jannada gudaheeda waxa ugu sugan jannatulkhuldi gudaheeda waxa ugu sugan maa yashaa'uuna waxay doonaan baa u sugan waxay helayaan waxay doonaanba waxay doonaanba u sugnaadeen oo ay helayaan khaalidiina xaal ay waarayaan oo jannada gudaheeda ay ku waarayaan kaana calaa rabbika wacdan mas'uula kaana wuxuu ahaaday ay huwa wacdigu calaa rabbika rabbiga yacni markaa mid ku waajib uu ahaaday wacdan ballanqaad buu ahaaday mas'uulan la weydiinayo ayuu ahaaday oo la weydiisanayo ayuu ahaaday yacni wacdigu ilaahay ballanqaaday oo wacdigaana la weydiisanayo oo ay mu'miniintii weydiisanayaan in ilaahay u oofiyo dabeedna u oofin doono ayuu ahaaday wuxuu allah inoo sheegayaa jannada in loo ballanqaaday muttaqiinta jannadaa loo ballanqaaday muttaqiintuna inay ka wanaagsan tahay waxa yacnii gaaladu ay la kulmayaan ee waciidkiiyo naarta ah marka la yidhi adaalika khayrun am jannatu alkhuldi alatii wucida almuttaquun laba shay oo aan markaa
khayriyadii wadaagin ayaa haddana waxa weeye markaa la isbarbar dhigay markaasaa la kee khayr leh ya ismu tafdiilkana asal ahaan waxaa loo isticmaalaa laba shay markay wax wadaagaan laakiin dheeraad ku kala leeyihiin baa loo isticmaalaa asal ahaan waxaana dhacda wakhtiyada qaarkood shay aan khayr lahayn iyo shay khayr miidhan ah inta la isbarbar dhigo in markaa khayrun la geliyo marka tan noocaasi waxay noqonaysaa nooca la yidhaahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabih ismu tafdiilku halkan oo kale baabkiisii ma aha oo khayrun keebaa khayr badan macnuhu ma aha ee waxaa laga tilmaamaya keebaa khayr leh naartu dee khayr ma leh jannaduna waxaa weeye waa khayr waa wanaagsan tahay marka dee laba shay oo la isbarbar dhigaba oo yacni la kala fadilo asaalatan marka hore ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa si loo caddeeyo khayriyada inay marka waxay la gaar tahay jannadu oo naartu aynay la wadaagin baa sidan loogu sheegayaa waxaana markaa yacni lagula hadlayaa gaaladii dooratay dariiqa markaa naarta dooratay arbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar ma rabbiyo kala tagan baa khayr leh mise ilaaha waaxidulqahaarkaa baa khayr leh ya yacni maqaamulixtijaaj weeyo yagii baa lala doodayaa baatilnimadoodii la caddaynayaa iyo kufrigoodii iyo xumaantooda la caddaynayaa marka dee ma odhan karaan rabbiyo kala tagan in la caabudo ayaa khayr leh ma odhan karaan oo dee allah ka wanaagsan ma odhan karaan marka maadaamay sidaas aynay odhan karin xujo ahaan baa sidaa loogu radinaya halkana naar ololaysa inay yidhahdaan jannatulkhuldiga waa ka fiican tahay dee markaa ma odhan karaan walow yaanay rumaysnaanbe haddii markaa la yidhaahdo labadaasi hadday jiraan kee khayr leh dee waxa weeye ma odhan karaan markaa naartaa khayr leh wuxuu allah yidhi lahum fiiha maa yashaa'uuna khaalidiin waxaa ugu sugnaaday jannada gudaheeda waxay doonaan baa ugu sugnaaday waxay doonaan ayaa ugu sugnaaday lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim iyo lahum maa yashaa'uuna fiiha iyo lahum fiiha maa yashaa'uuna khaalidiin yacnii aayado kala duwan baa saa ku soo arooray waxay dadka qaarkood dooneen inay u deliishadaan aayadahaas awliyada ilaahay wax allo waxay doonaan bay helayaan marka maadaama waxay doonaan baa awliyada ilaahay ay helayaan annaguna waxaasaannu wax ka weydiisanaynaa oo gargaar weydiisadka aanu gargaar weydiisanayna waxaan uga jeednaa waxaa in wax naga siiyaan baanu doonaynaa dadka qaar baa sidaa yidhi aayadahanna doonay inay u deliishadaan dadka dhintay baryista la baryaayo ama la gargaar weydiisanaayo inay u deliishadaan bay dooneen laakiin aayadahan wax daliili uguma jiro waayo lama odhan adduunyaday waxay doonaan ku helayaan lama odhan jannada gudaheedaa lagu siinayaa waxay doonaan waa la qayday lahum fiiha fi dunya miyaa la yidhi maya lahum fiiha maa yashaa'uun lahum maa yashaa'uuna fiiha aayadda kale fiiha baa lagu qayday lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim waxay doonaan baa u sugnaaday oo rabbi agtiisa ugu sugnaaday saas aawadeed adduunyada waxay doonaan inay ka helayaan ma tilmaamayso taas waxaa sii caddaynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay shuhadada shahiidnimo qaatay ee ilaahay dartii u soo shahiidnimo qaatay ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa wax tamaniya wax jeclaysta nebigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa markaasay waxay yidhahdeen ilaah waxaannu tamaniyaynaa oo jeclaysanaynaa inaad adduunyadii nagu celiso intaadna noolayso adduunyadii inaad nagu celiso oo dabeedna mar labaad aanu markaa waddadaada u soo jihaadno oo haddana naloo soo dilo markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa taa yeeli maayo bimacnaa waxaa weeye adduunyada idinku celiyaa waxyaalaha tamaniga laydiin fasaxay ee laydin siinayo kama mid aha yacni nebigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed iyagu laftoodu waxay doonayeen oo adduunyadii in lagu celiyaa ayaan la siinayn laakiin waxaa laga tilmaamayaa jannada gudaheeda in lagu siinaayo waxay doonaan taasaa laga tilmaamaya marka aayadda xujo uguma jirto dadka doonay inay u deliishadaan
dad dhintay ayaannu baryaynaa gargaar weydiisanaynaa oo waxa uu ilaahay siiyey wax naga siinayaan oo fii daari dunyaa nagu siinayaan wax xujiya daliili ugama jiro su'aal kale waxay ku imanaysaa ahlu jannuhu maadaama ay darajaad kala sarreeye ay ku kala sugan yihiin oo daraja waaxida aynay ku sugnayn haddii mid waliba wax alla wuxuu doono helaayo miyaynay ka iman karin isku derajo inay noqdaan oo darajaadka caaliga ka korreeya inuu markaa dalbado oo uu doono miyaynay ka imanayn culammadu waxay yidhahdeen tan noocaasi markaa kama imanayso oo lahum fiiha maa yashaa'uun waa wixii qadarkooda ansab u ah ayuunbay doonayaanee wax ka dheeraada maba doonayaanba maaha wax iska sii daysan qulubtooda ilaahay baa xukuma waxay doonayaan haddaan ilaahay doonin ma doonayaanba saas aawadeed waxa markaa maqaam aan munaasib u ahayn ma tamaniyayaan mana doonayaan haddii kale mid baa iska odhan lahaa hadday iska sii daysan tahay anuu manaasisha ambiyadaan doonaya derajooyinka nebiyada in lay gaadhsiiyo ayaan markaa doonayaa buu markaysaga mid odhan lahaa wuxuu mid kale odhan lahaa waxaan doonayaa markaysaga wax alla waxa naarta ku jira in laga soo saaro ayaan doonayaa waxaan doonayaa gaalada markaysaga in naarta laga soo badbaadiyo laakiin maadaama markaysaga markaa gaal ilaahay u dembi dhaafayo naarna laga saarayaa aanu jirin axad markaa ahlu jannaha ka mida oo tamaniyayaa maba jiraba ama doonayaa in gaal ilaahay u dembi dhaafo ama marka uu naarta ka soo bixiyo ya saas aawadeed waxay yidhahdeen culammada mufasiriintu sida baydaawi waghayruhu ay cabbireen yacni culamo badan oo kalena ay ka soo naqliyeen yacni markaa wixii u ansab ah ayaa mid weliba doonayaa ee waxaan munaasib u ahayn laa'iqna aan u ahayn aanu gaadhi karin qalbigiisaba ku soo dhici maayo mana doonaayo maqaamkiisu raalli ku yahay mid waliba derajada la siiyey ayuu raalli ku yahay derajo derajadiisa ka sarraysaa oo aanu gaadhi karin mid doonayaba ma aha oo niyaddiisaba ay ku soo dhacayso allah waxa uu yidhi qul adalika khayrun am jannatu alkhuldi alatii wucida almuttaquun qul waxaad tidhaahdaa adaalika khayrun madkuurkaa la soo sheegay oo naarta lagu cadaabaya ah oo halaagyada ay u yeedhanayaan ah khayrun ma isagaa khayr leh am jannatu alkhuldi mise jannada waaritaanka ayaa khayr leh allatii jannadaa laga sifaynayaa taasoo wucida almuttaquun ay wucidaha almuttaquun loo ballanqaaday kuwa ilaahay ka baqanayo wacda waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa marka ficilka muqayaru siiqo laga dhigay mafcuulkii koowaad wuxuu noqday naa'ib faacil buu noqday kii labaadna waa qadaran yahay oo waa la xadfay wucidaha almuttaquun kaanat lahum jazaa'an yaga waxay u ahaatay marka abaalmarin bay u ahaato ugu sugnaatay wa masiiran meel loo noqdona waa u ahaatay yacnii horay ugu ahaydoo loo qadaray oo ilaahay u ogaa marka waxaa laga soo qaaday yacni maadaama ay xaqiiqo tahay inay u sugnaanayso inay abaalmarin horeba ugu ahayd lahum fiiha maa yashaa'uun lahum waxaa u sugnaaday muttaqiintaas fiiha maa yashaa'uun jannada gudaheeduun waxa ugu sugnaaday fi dunyaa ma ahee maa yashaa'uuna waxay doonaan khaalidiina xaal ay waarayaan jannada gudaheeda xaal ay ku waarayaan kaana calaa rabbika wacdan mas'uula kaana wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbigaa wuxuu ku ahaaday wacdan ballanqaad ayuu ahaaday rabbigaa markaa ku waajib oo ilaahay isku waajibiyey oo ballanqaaday oo mas'uulan la weydiisanaayo waxaa loo jeedaa mu'miniintaa weydiisanaysa rabbanaa wa aatinaa maa wacadtana calaa rusulik ilaahay bay weydiisanayo le waxaad noo ballanqaaday oo carabadii rasuulladaada aad noogu ballanqaadayna sii malaa'igta laftoodu way u weydiinayaan oo ilaahay waa uga baryayaan mu'miniinta inuu siiyo ballanqaadkii uu ballanqaaday rabbanaa wa adkhilhum jannaati cadnin alatii wacadtahum malaa'igtaa odhanaysaa rabbigayow yacni markaa geli jannooyinkii nagaadiga lagu sugnaanayey lagu nagaanayey allatii wacadtahum taasoo aad u ballanqaaday ilaahay ou geli wa yowma yaxshuruhum wamaa yacbuduun allah wuxuu yidhi wa yowma yaxshuruhum ay wadkur waxaad xustaa yowma yaxshuruhum maalintuu ilaahay soo ururinayo gaalada mushrikiinta ah wamaa yacbuduuna
iyo waxay caabudi jireenba uu soo ururinayo min duuni illaahi allah sokadii ay caabudi jireen fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay a antum adlaltum cibaadii a antum idinku adlaltum miyaa lumiseen cibaadii addoommadaydi miyaa lumiseen oo habaabiseen haaulaa'i kuwaasi ahaaday am hum dallu sabiil mise iyagaa waddada xaqaa ka lumay oo iskoodu lumay idinku maydaan lumin qaaluu subxaanak qaaluu waxay yidhaahdeen subxaanaka ay tansiihan lak adaa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer maa kaana yenbagii lana an nattakhida min duunika min awliyaa maa kaana yenbagii lana annaga nooma suuragal aha bay yidhaahdeen an nattakhida inaannu yeelanno min duunika adiga sokada adiga markaa sokada min awliyaa'a awliye inaannu yeelannaa markaa nooma suuragal aha qaar aannu jecel lahay oo aannu markaa caabudno adiga sokada ama adiga kayrkaa qaar aannu caabudno inaannu ka yeelanno aannu jecel lahay oo awliye ah wax noo suuragala maaha mar haddii cid kale inaannu caabudnaa aynan noo suuragal ahaynna inaannu amarno in annaga nala caabudana ama cid kale la caabudo oo marka allah ka soo hadhay yadana markaa mid naga suuragala maaha walaakin matactahum ha yeeshe waad u raaxaysay iyaga iyo wa aabaa'ahum aabbayaashoodba waad u raaxaysay waxaad u raaxaysay xataa nasuu dikr ilaa ay markaa waxa weeyaan yacnii waanadii ay ilaaween ama inay ku xasuustaan ay ilaaween wa kaanuu qawman buuraa wa kaanuu waxay ahaadeen qawman duul bay ahaadeen buuraa halaagsamay ayay ahaadeen faqad kadabuukum bima taquuluun xaqiiqee waa markaa idinku beeniyeen bimaa taquuluuna wixii ay odhanayseen ee sheegi jirteen bay idinku beeniyeen kuwa caabudi jirteenee ilaahay ka soo hadhay famaa tastatiicuuna ma kari karaysaan sarfan yacni markaa leexin cadaabka cid a ka baajisaan ma awoodi kartaan walaa nasran yacni hiilaa cid u hiilisaanna ma kari kartaan yacni naftiinna iyo cid kale toonna cadaab kama baajin kartaan waman yadlim minkum nudiqhu cadaaban kabiira waman yadlim ku kastoo xadgudba oo bimacnaa waxa weeye dulmul akbar la yimaada shirkigii minkum xaaluu idinka mid yahay nudiqhu waxaanu dhadhansiinaynaa cadaaban cadaab baanu dhadhansiinaynaa cadaabkaasoo kabiiran weyni badan cadaab aad u weyn ayaanu dhadhansiinaynaa allah wuxuu inoo sheegayaa gaalada iyo wixii ay caabudi jireen ilaahay sokadii in la soo ururinayo o la soo saarayo oo mushrikiintii waa la soo saarayaa khalaa'iqdoo dhan baa la soo saaraya mushrikiinta hadda si gaara loo tilmaamaya qariinada waxaa la socota wamaa yacbuduuna min duuni illaah marka kuwii mushrikiinta ahaa iyo wixii allah sokadii ay caabudi jireen marka la soo wada bixiyo ayaa kuwii ay caabudi jireenee ilaahay ugu shariig yeeleen ayaa la weydiinayaa lagu odhanayaa ma idinkaa addoommadaydan lumiyey addoommadaydan idin caabudi jiray ma idinkaa lumiyey oo habaabiyey a antum adlaltum cibaadii haaulaa'i ilaahay isagoo og buu weydiinayaa ilaahay wax ka qarsooni ma jiro cilmiga ilaahay waa waasico ilaahay wax walba waa og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wuxuu allah ogyahay wixii hore u jiri iyo waxa jiri doona iyo waxaan jiraynay hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay wax walba allah waa ogyahay isagoo ilaahay og ayuu su'aalayaa weydiinaya muxuu u weydiinaya wuxuu u weydiinayaa kuwii caabudi jiray si xujada loogu oogo oo loo caddeeyo yacni xataa kuway caabudi jireen inay ka beri noqdeen kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda cibaadadii iyaga la caabudi jiray kuwii yacni ilaahay lala caabuday ee laga ilaah yeeshay ee allah ka soo hadhay kuwii caabudi jiray way markaa ka beri noqonayaan sayakfuruuna bicibaadatihim cibaadadii iyaga ay caabudi jireen bay ka beri noqonayaan oo ka kufrinayaan oo dafirayaan wayakuunuuna calayhim didda waxayna ku noqonayaan qaar lid ku ah bay ku noqonayaan liddi bay ku noqonayaan cadow ka soo horjeeda
oo waxoodaa diidan ayuu markaa noqonayaa. marka ma yagaa iska luma mise idinkaa lumiyaa lagu odhanaya. ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la su'aalayaa waa nebiyadii iyo malaa'igtii. marka khusuuska cidda markaa hadalkan odhanaysa cid kale inaannu caabudnaa nooma suuragal aha, waa cid wanaagsanayd weeye, waa cid ilaahay u tasbiixsanaysay. yacni waayo mushrikiinta qaarkood malaa'ig bay caabudeen, qaarkood nebiyay caabudeen. marka kuwii la caabudee wanaagsanaa ayaa ka beri noqonaya. qaaluu subxaanaka maa kaana yenbagii lana an nattakhida min duunika min awliyaa. awliyada culamada qaar waxay u fasireen atbaac iyaga raacaya oo caabudaya. culamada qaarna waxay u fasireen awliyada in laga tilmaamayo macbuudiin la caabudaayo allah ka soo hadhay. labada tafsiirba way sheegeen. marka tafsiirka macbuudiinta in looga jeedo ayaa markaa arjax ah. maa kaana yenbagii lana an nattakhida min duunika min awliyaa walaakin matactahum wa aabaa'ahum. way ka beri noqonayaan, waxayna odhanayaan markaa waad u raaxaysay iyagiyo aabbayaashood baa ilaa dikrigii ay markaa ilaaween. yacni markaa dabeedna markaasay halkaas ka kufriyeen oo xumaanta iyo kufrigaa ay markaa la yimaadeen. allah wuxuu yidhi wa yowma yaxshuruhum ay wadkur waxaad xustaa. waxaa loo qadarayaa ficil, udkur baa loo qadarayaa. wadkur waxaad xustaa yowma yaxshuruhum maalintuu ilaahay soo ururinayo kuwa mushrikiintae ilaahay cid kale la caabudayey. wamaa yacbuduuna ay waladiina yacbuduunahum iyo kuway caabudi jireenba waa la soo wada ururinaya, waa la soo saaraya min duuni illaahi allah sokadii ay caabudi jireen. fayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa a antum idinku adlaltum miyaa lumiseen. maxallu istifhaamku waa adlaltum. idinku miyaa lumiseen cibaadii addoommadayda haaulaa'i kuwaasi ahaaday miyaa lumiseen. am hum dallu sabiil mise iyagaa waddada xaqa ah ka lumay, iyagaan cidina lumin. qaaluu waxay yidhaahdaan subxaanak ilaahu adaa xumaan ka nasahan. waa taa suuratu maa'ida aakhirkeeda aynu ku aragnay ilaahay inuu weydiinaayo nebi ciise a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah. yacni iyadoo ilaahay og yahay inaanu odhan ayuu ilaahay ciisa bnu maryam wuxuu su'aalayaa, weydiinayaa, ma adiga ayaa ku yidhi anigiiyo hooyaday laba ilaah ka yeesho yacni na caabuda, ma adiga ayaa yidhi. ilaahay waa og yahay inaanu markaa odhan, haddana ilaahay waa su'aalayaa. waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah. muxuu ku jawaabayaa? qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq. ilaahay adaa xumaan ka nasahan. waayo shirkigu waa masaba lilaah, waa dhaleecayn iyo cay ilaahay la caayaayo shirkigu weeye. yacni markaa iima suuragal aha inaan idhaahdo waxaan markaa xaq aanan ku lahayn. waxaan xaq ahayn ma odhan karo. hadalkaa inaan idhaahdana xaquma lihi. marka waxaa weeye inaan idhaahdaa mid iga suuragala ama iga dhici karta ma ah. qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtiiyo nebiyadiiba subxaanak ilaahu adaa xumaan ka nasahan. maa kaana yenbagii lana an nattakhida min duunika min awliyaa. aayad kale waxaa laynoogu sheegay inay odhanayaan ilaahu annaga nama caabudi jirin. maa kaanuu iyaana yacbuduun. annaga qaarna caabuda ma ay ahayn ee waxay caabudi jireen shayaadiintay caabudi jireen. shayaadiinta ayay caabudi jireen. maxay shayaadiinta u sheegayaan? shayaadiintu iyaga ayaa ku caawinaya shirkiga, laakiin malaa'igtu ku caawin mayso. wa yowma yaxshuruhum jamiican suma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun. waxa uu ilaahay ku yidhaahdaa malaa'igta, kuwaasi ma idinka idin caabudi jireen? qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim. adigaa weligayagii ah, macbuudkayagii ah, kaanu jeclayna ah, iyagu markaysaga nooma aha. bal kaanuu yacbuduuna aljin. jinkay caabudi jireen. aksaruhum bihim mu'minuun. marka waxa weeye jinkay caabudi jireen waxay u yidhaahdeen shayaadiintaa ku caawinaysa. iyagu cindigooda waxay isu qabeen ama malaa'ig ama nebiyo inay markaa waxa weeye caabudayaan, saasay isu qabeen. sidaas
ayay isu qabeen laakiin marka malaggan ay baryaan ama gargaar weydiistaan ama nebigan ay baryaan waxa weeye cidda markaa caawinaysay cidda taageeraysay cidda markaa hadalla ku odhanaysay waxay ahaayeen shayaadiintii bay ahaayeen kuwaasaa ku caawinayey shirkiga ku caawinayey oo doonaya shirkiga inay ku sugnaadaan laakiin waxa weeye malaa'igta iyo nebiyada iyo saalixiintuba dee shirkiga beri bay ka yihiin yacni markaa cid shirki samaynaysana shirki ku caawin maayaan kumana taageerayaan qaaluu subxaanak qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii iyo nebiyadii subxaanak malaa'igtii iyo nebiyadii dadka qaar ay caabudeen waxay yidhahdeen subxaanak adaa xumaan ka nasahan ilaahayow xumaan adaa ka dheer maa kaana yenbagii lana annaga nooma suuragal aha an nattakhida min duunika min awliyaa inaannu adiga sokada aannu yeelanno awliye inaannu yeelanno qaaraannu jecel lahay oo aannu caabudno adiga cidaan ahay inaannu ka dhigannaa nooma suuragal aha walaakin mattactahum ha yeeshe waad u raaxaysay kuwan yaga iyo wa aabbaa'ahum aabbayaashoodba waad u raaxaysay xataa nasuu dikra ilaa ay markaa dikrigii ilaaween oo mawcidadii iyo waanadii ay ilaaween ama xasuusadka adiga ay ku xasuusanayaan oo ku xusayaan ilaa ay ilaaween wa kaanuu waxay ahaayeen qawman duul bay ahaayeen buura ay halkaa halaagsamay ayay ahaadeen dad halaagsamay ayay ahaadeen faqad kadabuukum xaqiiqee waa idin beeniyeen waxaa lala hadlayaa mushrikiintii bimaa taquuluuna wixii aa odhanayseen iyaga ka sheegayseen oo waxaanay ka raalli yihiin waxaanay noogu gargaarayaan sidan bay noo samaynayaan sidan bay noo taageerayaan wixii waa idinku beeniyeen famaa tastatiicuuna ma kari karaysaan sarfan yacni markaa leexin yacni markaa ama baajin cadaabka markaa yacni markaa nafihiinna ama cid kale aa ka baajisaan ma kari kartaan wala nasran hiil aa cid u hiilisaanna ma kari kartaan waman yadlim minkum ku kasta oo dulmi la yimaado oo idinka mida nudiqahu waxaannu dhadhansiinaynaa cadaaban kabiira cadaab weyn ayaannu dhadhansiinaynaa wamaa arsalnaa qablaka min almursaliina ilaa innahum laya'kuluuna alطacaam allah wuxu uhi wamaa arsalnaa maanu soo dirin qablaka adiga horta min almursaliina rasuullada xaalay ka mid yihiin maanu soo dirin cid rasuullada ka mida maanu soo dirin ilaa innahum laya'kuluun inay iyagu markaa ahaadeen qaar cunaya mooyaane alطacaama cuntada cunaya wayamshuuna soconaya fi laswaaqi suuqyadana soconaya oo kasab xalaala u soconaya yacnii rasuulladii horeba saasay ahaayeen qaar marka waxa weeye sida basharku wax u cunaan qaar wax u cuna bay ahaayeen oo qaar cuntada ka caaggan may ahayn qaar markaas yacni socdo oo suuqyada socda oo kasab xalaala u socda si ay u shaqaystaan ayay ahaan jireen rasuulladii horeba adiguna sidii baa tahay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam wajacalnaa bacdakum libacdin fitna allah wuxu uhi wajacalnaa waa ka yeelnay bacdakum barhkiinba libacdin barhka kale waxaan uga yeelnay fitnatan imtixaan baan uga yeelnay aanu ku imtixaanayno waa isku kin imtixaamayna atasbiruun ma sabraysaan yacni sabra oo la yidhahdo istifaamku wuxuu u dhacayaa bimacna alamri ay isbiruu sabra ama la yidhahdo istifaamka sidiisaa loo daynaya oo atasbiruuna am laa ma sabraysaan mise sabri maysaan yacni waxa weeye ilaahay baa eegaya yacni markaas sidaa yani inaad sabirtaan iyo inaan sabrin wa kaana rabbuka basiiraa wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday basiira mid arag badan ayuu ahaaday halkan waxaa laga jawaabayaa shubhadii gaaladu ay sheegeen oo ay yidhaahdeen muxuu yahay rasuulkan cuntadana cunaya suuqyadana u soconaya kasabka bimacnaa hadduu rasuul ahaan lahaa cunto ma cuneen bay u jeedaan suuqna markaa kasab uma shaqo tageen oo shaqo xalaala ma raadsadeen oo ma doonteen rasuul markay ku magacaabayaanna istihzaa iyo dheeldheel iyo tahakun bay uga jeedaane inay qirayaan risaaladiisa ma aha laakiin way ku jeesjeesayaan saasay uga dan leeyihiin marka warka ay tilmaameen ay markaa ka dhigayaan inuu rasuul noqdo iyo inuu cunto cunaa inay isdiidayaan
ama inuu rasuul noqdo iyo inuu markaa shaqo xalaala raadsadaa ou shaqo tagaa inay isdiidayaan taasi inaynay jirin baa laynoo tilmaamaya oo wax isdiidaya aynay ahayn oo rasuulladu aynay ahaan jirin malaa'ika aynay ahaan jirin basharka loo soo dirayo ee yacni ummadaha u digaya ee ummad walba markaysaa markaa waxaa la khitaabaya si guude ula hadlaya yacni waxa weye may ahaan jirin malaa'ig may ahaan jirin bashar iyaga la miday ahaan jirin oo basharnimada kala mida sida kale ha uga wanaagsanaadaani marka allah wuxuu inoo sheegayaa rasuulladii hore ilaahay soo dirayba inay bashar ahaayeen inay cuntada cunayeen inay waxa weeye markaa suuqyada socon jireen haddana markaa rasuullo xaqa ay ahaayeen marka ma aha markaa risaalada iyo tani inay isdiidaysa ma aha markaa warkii gaalada la radinaya la caddaynaya baatilnimadiisa yacni markaa la caddaynaya wuxuu kaloo allah yidhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun qaarkiinba qaarka kale imtixaan baan uga yeello oo isku kii imtixaannay yacni waxa weeye cid walba cidda kale ayaa dad kale isku imtixaanaya adduunyadana sideedaba imtixaan baa laynoo keenay adduunyadu waa daar laynoo keenay imtixaan laynoo keenay alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wuxuu ilaahay noloshiyo geeridaba u abuuray suu inoo imtixaano daraaddeed ayuu abuuray marka khayr iyo sharbana waa laysku imtixaanayaa wanabluukum bishari waalkhayri fitna hadday tahay wanaagyaalka iyo nicmooyinka iyo barwaaqooyinka nicamka waa laysku imtixaanaya wakadalika dhibaatooyinka iyo masaa'ibkana waa laysku imtixaanaya hadday faqri tahay hadday markaa xanuunno tahay hadday markaa dhibaatooyin kale tahay yacni waxa weeye waa imtixaan dadka laftooda waa laysku imtixaanaya yacni waxa weeye xadiiskii waxaa ku soo arooray muslim innii mubtaliika wa mubtalin bik adna waa ku imtixaanayaa dadkana waa kugu imtixaanaya marka waxa weeye yacni qaarba qaarka kale ayaa lagu imtixaanaya rasuulladii waa la imtixaanayaa dadkii loo soo diray almursalu ilayhim yacni waxa weeye kuwii loo soo diray ee ummadaha ahaana iyagana waa la imtixaanaya waxaa la eegayaa rasuulladii inay rumeeyaan warkoodii aqbalaan ay rumeeyaan oo u hoggaansamaan oo raacaan iyo in kale ayaa la eegaya yacni afraadda ummadda lafteeda waa la ysku imtixaanaya hadduu madax yahay iyo hadduu manjo yahay hadduu qani yahay iyo hadduu faqiir yahay hadduu yahay markaa waxaa weeye mid yacni markaa magac leh iyo hadduu yahay midaan magac lahayn hadduu yahay mid hooseeya iyo hadduu yahay mid sarreeya hadday qaraabo yihiin iyo haddaynay ahayn dhammaan waxa weeye imtixaan baa jira waalidkiiyo waladkaas soo gelaya zawjkiiyo zawjadaas soo gelaya yacni wajacalnaa bacdakum libacdin fitna wa caam atasbiruun marka dhibaatooyinka waa lagu sabraa alsabru cala almasaa'ib waa waajib sunne maaha masaa'ibta in lagu sabraa faral weeyo waa waajib ee sunne maaha qofka marka musiiba ku dhacdo waxaa la rabaa inuu musiibadii inuu markaa waxa weeye ku sabraa la rabaa oo sabir la yimaado oo ogaado inuu ilaahay u qadaray dabeedna markaa uu sabro yacni suu ajar u helo waayo hadduu argagaxo oo waxa weeye markaa u cataabo oo waxa weeye iska baroorto iska ooyo ma waxbay u soo celinaysaa ma waxbay siinaysaa kurbadiyo dhibaatada miyay ka qaadaysaa maya kama qaadayso haddii wax ka dhinteen miyay u soo noolaynaysaa maya si kastuu u baroorto ma ku soo noolaanayaan markaysaa ciddii dhimatay maya kuma soo noolaanayo xaqiiqada wuxuu ku dambayn doonaa marka dambe inuu sabro dee sabirkaa dambe markaa wax ka soo qaad ma leh waa sabir taagwaa weeye laakiin sabirka fadligani waa maxay waa marka hore ee qofka musiibadu haleesho sabirku la yimaado innama asabru cinda asadmati aluulaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sabirka yacni maxmuudkee fiicanee qofka laga ajar siinayaa wuxuu ahaadayoo qudha marka ugu horraysa qofka musiibadu ku dhacdo sabirka marka ugu horraysa uu sabro dadka qaarkood baa marka musiibo ku dhacdo marka hore waxa weeye waa argagaxayaa waa qaylinayaa waa barooranayaa waa isiifayaa waa ishaaraamayaa maryuhu jeexjeexayaa waa isgaraacayaa ciidduu isku liqayaa yacni markuu wax walba sameeyo naftiisii dhibaateeyo ayuu marka dambe odhanaya waa iska sabrayaa buu odhanaya taa dambe markaysaa markaa waxa weeye fadiila kuma sugna yacni waxay u soo celinaysaana ma jiro isagoo dembi weyn oo kabaa'ira xambaartay ayuu marka dambena caaqibada ku dambaynayaa inuu sabro
naftiisana waa dhibaateeyey oo waxa weeye markaysaga waxaa laga yaabaa waxaasi inay markaa waxa u sababaan yacni xanuunno iyo dhibaatooyin inay u sababaan yacni ciqaabka aakhira laakiin ka daran oo waxa weeye markaa loo ballanqaaday cidda baroorata oo sabri weyda yacni markaa ciqaabka haleeli doona iyo cadaabka ku dhici doona ayaa sii daran. allah waxau yidhi وqاla الذiina laa yarjuuna liqاءana lowla أnzila عalayna almalaa'ikaةu aw naraa rabbana wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yarjuuna liqaa'ana aan rajaynayn kulankay nala kulmayaan bimacnaa aan ka baqanayn kulankay nala kulmayaan aan ka baqanayn oo rajaaga waxa ay ka mid tahay min alabdaad erayada macaanida iskuliddigii ku kulmaan oo rajaa bimacna alkhawf iyo rajaa bimacna atamac labadaba waa loo isticmaalaa. lowlaa unzila calayna almalaa'ika maana lagu soo dejiyo korkayaga malaa'ig maana lagu soo rogo ayay yidhaahdeen. lowlaa ay halla unzila maa lagu soo dejiyo calaynaa korkayaga almalaa'ikatu malaa'ig maana lagu soo rogo aw naraa rabbana ama rabbigayo maanu aragno laqad istakbaruu fii anfusihim allah wuxuu yidhi laqad istakbaruu allah baan ku dhaartay ee xaqiiqe ee waa markaa kibreen oo waa isweyneeyeen fii anfusihim xagga nafahooda ay iska weyneeyeen iyagaa isla weynaaday wacatow cutuwan kabiiraa wacatow waa xadgudbeen cutuwan xadgudub bay xadgudbeen kabiiran weyn yowma yarawna almalaa'ikata laa bushraa yowmaidin lilmujrimiin yowma yarawna ay udkur waxaad xustaa udkuru qadar yowma yarawna maalintay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta ay arkayaan oo maalintay geeriyoonayaan ay tahay ama maalinta la soo saaro ay tahay labada waa lagu fasiraya laa bushraa yowmaidin bushaaro may ahaan yowmaidin maalintaas lilmujrimiina mujrimiinta mid u sugan kuwa gabood falay xumaato falay waa kuwa gaalada bushaara mid u sugan ma aha wayaquuluuna waxay odhanayaan xijran maxjuura yacni waa laga manciyey yacni markaa laydinka manciyey xijran mancin baa laydinka manciyey oo laydiin diido laydinka xarimay maxjuuran la xaaraantinimeeyey ay xaraaman muxarama yacni ficilka waxa weeye waa la xadfo waxay yidhaahdaan marka culammadu waa waajibulxadfiyo waxa loo laasimay yidhahdeen markaysaa in la xadfo ya xijriguna waa macna almanci weeye waa diidma weeye marka waxay ka dhigan tahay xaraaman muxaraman yacni xaaraan la xaaraantinimay idinka tahay inaad marka waxa weeye bushaaro ay heshaan yacni markaa ama xaaraan la xaaraantinimay idinka tahay inaad falaax iyo nabadgeliyo iyo markaa liibaan aa gaadhaan yacni xajarakum allahu canha xijran maxjuura waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin waqadimnaa waxaanu doonno u qasadnay waxaanu doonnay ilaa maa camiluu waxay sameeyeenoo min camalin camal ah fajacalnaahu waxaanu ka yeellay habaa'an boodh baanu ka yeellay boodhkaasoo mansuuran la firdhiyey ayaannu ka dhignay aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa wa qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbana gaaladii inay waxyaalihii ay uga jeedeen jikaarka iyo madaxadayga iyo cinaadka ay uga jeedeen ee ay keeni jireen bay ka mid tahay rasuulladana ku caaridi jireen waxaynay ka tahay markay leeyihiin saasi may dhacdo saasi may dhacdo saasi may dhacdo ku xujee bay isleeyihiin xujayn bay uga dan leeyihiin xujayn ayay uga dan leeyihiin saas aawadeed baa ashyaada mustaxiilaadka xataa ay odhanayaan oo ay markaa dalbanayaan marba waxa weeye waxay doonaan bay iska odhanayeen ya rasuulladana wax markaa caddaynaya inuu rasuul xaqa yahay waa in mid walba oo mucjizo ahi ay wehelisaa taasi waxa weeye waa laazim laakiin ta iyagu codsadaan oo iyagu doonaan oo yidhaahdaan taas ha nala siiyo ama taa la kaalay ama caynkaasi ha dhacdo rasuul markaa
yacni taas inuu markaa keenaa laazim ma aha. waxay ku xaqiiqsan lahaayeen inuu rasuul xaqa yahay bes oo mucjizo ah inay rasuulka wehelisaa markaa loo baahan yahay. rasuul mucjizo ka marana ma jiro. laakiin waxay iyagu markaa dooranayaan oo ay sheeganayaan oo ay codsanayaan inay dhacdaan laazim maaha. laazim maaha. ilaahay hadduu doonana waa keenaya, hadduu doonana ma keenaayo. hadduu doonana ma keenaayo waxyaalahay codsanayaan. laakiin haddii markaa waxay codsadeen oo yidhaahdeen waxaa la kaalay, haddaad waxaa la timaaddo waa ku rumaynaynaa, dabeedna wixii loo keeno oo deedna ay rumayn waayeena ay gaaloobaan, yacni sunnada ilaahay waxay ku dareertay in ciddaa la halaago. sunnada ilaahay waxay ku dareertay ciddaa in la halaago ayay ku dareertay. marka waxa weeye halkan waxay codsadeen oo yidhaahdeen maa malaa'igna lagu soo dejiyo. haddaba muraadkay uga jeedaan lowlaa unzila calayna almalaa'ika maxay uga jeedaan? muraadka culammadu waa isku khilaafeen. bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayna almalaa'ika waxay u jeedaan maa malaa'ig la soo dejiyo, malaa'igtaas inta la soo dejiyo ayagu ka markhaati kacaan muxamed inuu rasuul ilaahay yahay. sidaa culammada qaar baa u fasiray. weji labaad culammada qaar waa u fasireenoo waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu markay leeyihiin waxay uga jeedaan maa malaa'igna loo soo dejiyo, malaa'igtu rasuullo naloo soo diray oo iyagu noo digaya, yacni may ahaato oo rusul iyagoo ah malaa'igta maa naloo soo diro. wejigaana culammada qaar baa yidhi. weji saddexaad culammada qaar waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu muraadkay uga jeedaan waxa weeyaan maa malaa'igna lagu soo dejiyo, malaa'igtu annaga noo waxyooto halkay moxamed uga waxyoonayso. awjuhda caynkaasa mid walba meelo kaley soo aroortay, mid walba iyagoo dalbaday. aayaddanunbaa sida iyo sida iyo sidaba aqbalaysee, laakiin meelo kale baa mid waliba soo aroortay oo ay markaa mar leeyihiin maa malaa'ig la soo diro oo iyagu rasuulla noo noqdaan. maxaa bashar loo soo diraya? bashar maxaa loo soo diraya? ya marka taas waxa weeye waa dalban jireen, wakhtiyada qaarkoodna waa yidhaahdeen. yacni haddii markaa malag loo soo diri lahaana malagga dee kumay dayan kareen. mar labaadka haddaynay arkaynin oo iyagoo aan arkaynin uu la hadlo waxay odhan lahaayeen cid aanaan arkaynin saanu aqballaa warkiisa, armujin yahay. hadduu markaa ay arkayaan oo la tuso suuraddiisii malagnimo isagoo ku sugan ma xamili karaan oo ma arki karaan, way dhiman lahaayeenba. yacnii suuraddiisii malagnimo mabay xamili kareen oo may awoodi kareen inay markaa waxa weeye suuraddiisa malagnimo ku arkaan. haddii suurad bashar laga dhigo oo isagoo malaggii suurad bini aadama u yimaado, waxay markaan odhan lahay oo kani malagba maahee waa bini aadamay, waa bini aadam bay odhan lahay. allah wuxuu yidhi wa qaaluu lowlaa unzila calayhi malak walow anzalnaa malakan laqudiya alamru uma laa yundaruun. yacni waxay yidhaahdeen maa lagu soo dejiyo markaysa waxa malak. haddii malak la soo dejin lahaa arrinkaba waa la xukumi lahaa oo looma kaadiyana waa la halaagi lahaa. wuxuu kaloo allah yidhi walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajulan walalabasnaa calayhim maa yalbisuun. haddii waxa weeye malak aanu ka yeeli lahayn rasuulka, malak haddaanu ka dhigi lahayn, walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajulan, ila suuraddiisa malaknimo may xamili kareene way wada dhiman lahaayeene. nin baanu ka dhigi lahaynoo suurad nin mid ku sugan baanu ka dhigi lahaynoo suurad bashar ah, ya oo nin u eg. walalabasnaa calayhim maa yalbisuun, waxaanu kaga dheehgelin lahayn waxay hadda ku dheehgelinayaan. oo bimacnaa waxay odhan lahaayeen dee kani malakba maahee waa bini aadam bay odhan lahaayeen, waa bini aadam ayay odhan lahaayeen. wakhtiyada qaarkood inay yidhaahdeen ma rumaynayno ilaa annaga naloo waxyoodo, aayado kale ku soo aroortay. ya lan nu'mina laka xataa nu'taa midla maa uutiya rusulu ullah. kuma rumaynayna bay yidhaahdeen ilaa nala siiyo wixii rasuullada la siiyey wax la mid ah, bimacnaa annaga naloo waxyoodoo nebiya nalaga dhigo. yacni bal halkay codsanayaan daya iyagoo kufaar khubasa oo xunxun oo gaala qudhunlay ah ayay waxay leeyihiin rasuulla ilaa nalaga dhigo annaga naloo waxyoodo kuma rumaynayno.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته الله baa og meeshuu risaaladiisa ka yeelaayo mawdica uu ka yeelayo allah baa og halka uu og yahay u dooray ayaanu ka yeelaya halka iyagu doortaan maaha aw naraa rabbana waxay yidhaahdeen maa malaa'ig lagu soo dejiyo ama maanu rabbigaya aragno aw naraa rabbana maan rabbigaya aragno rabbi daaru dunya laguma arko ilaahay mu'miniintu aakhiro inay arkayaan waa jirtaa laakiin daarta adduunyo inta la joogo ilaahay lama arko inay arkaanna may awoodi kareen nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey tacallamuu annahu lan yaraa axadun minkum rabbahu xataa yamuut ogaada qof idinka mida rabbigii inaanu arkayn ilaa uu dhinto qofkaasi inaanu rabbi arkaynin ogaadaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey ta kale nebi muuse markuu ku yidhi ilaahay rabbi arinii andur ilayk rabbiyow iskay tusi aan ku arkee waa nebi ilaahay waa rasuul ilaahay oo rasuulladii ugu fadliga badnaa ka mida ululcasmigii shantii ululcasmigii ku jiraa markuu yidhi ilaahay iskay tusi aan ku arkee qaala lan taraanii ilaahay wuxuu ku yidhi i arki maysid bimacnaa ma xamili karti inaad aragto indhahan adduunyada markaa laynoogu abuuray waa indho aan baqaa iyo baaqi noqosho loo abuurin saas aawoodee ilaahay laguma arki karo aakhiro markaa mu'miniinta indhaha loo abuurayaa waa indho loogu talagalay baqaa weligood inaynay baabbi'in inaana daciifin inaanay isbeddelin inaanu beelin waa qaar baaqi noqosho inay abadal aabaad jiraan loo abuuray kuwaasaa ilaahay xoojinayaa oo mu'miniintu ilaahay ku arki doonaan aakhiro laakiin fii daari dunyaa indhaheennu ma xamili karaan allah inaynu aragno nebi muuse markuu ilaahay ku yidhi qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii iyo arki maysid buu ilaahay yidhi bimacnaa ma xamilaysi inaad i aragto fii daari dunya walaakin indur ila aljabal ha yeeshee buurta eeg buurta eeg baa lihi haddii markaa buurtaasi ay markaa sugnaato waad i arki doontaa walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii yacni hadday meesheeda ku sugnaato waad i arki doontaa buurtii ilaahay waa isu fayday qadar yar buu istusay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa irbad caaradeed in la eg ama irbad daluulkeed naxwa haada falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wakhara muusaa saciqaa markuu rabbi isu fayday bimacnaa istusay buurtii iyadooy dhagax tahay buurtii gebigeediba waa yani markaa waxay noqotay mid burbur bay noqotay dhagixii baa xamili waayey falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakka ay madkuukan mid la burburiyuu ka yeelay eber wakhara muusaa saciqa muusena marka waxa weyn yani markaa waa suuxay haddama arka iyaguna waxay leeyihin aw naraa rabbana saas aawadeed culammadu waxay isla ogol yihiin fii daari dunyaa soo jeed cid ilaahay ku aragtay inaynay jirin way isku waafaqsan yihiin nebi maxamed mooye cid kale la yskuma khilaafin axadaan nebi maxamed ahayni culammada islaamkao dhammi waxay ku ijmaacsan yihiin ilaahay inaanu soo jeed ku arkin fii daari dunyaa inta axadkaasi ku sugnaa nebigu doonaba ha noqdo shakhsigu doonaba ha noqdo laakiin nebi maxamed bay culammadu isku khilaafeen ilaahay ma arkay fii daari dunyaa isagoo soo jeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku riyooday waa jirtaa xadiis baynay leedahay laakiin riyadu waa shay aakhar soo jeed inuu ilaahay ku arkay khilaaf baa galay culammadu markaa waxay ka leeyihiin laba qowl qowlka arjaxayna waxa weeye waa inaanu arkin laakiin culammada qaar baa yidhi laba goor buu ilaahay arkay oo leylatu lisraa waalmicraaj ay markaa ka mid tahay culamada qaarkoodna waxay yidhi habeenkaasuunbaabu arkay leylatu lisraa waalmicraaj saxiixuna waxay tahay inaanu arkin weeye waayo
nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi dar ee muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hal ra'ayta rabbak qaala nuurun anna araah rabbigaa ma aragtay ayuu ku yidhi markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nuurun anna araah bimacnaa nuur baa iga teeday ee saan u arkayaa nuurun anna araah nuurkana waxaa loo jeedaa nuurka xijaabkaa baa loo jeedaa nuurka xijaabkuna waa nuur makhluuq ah nuurun anna araah riwaayada kale muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa ra'aytu nuuran nuur baan arkay nuurkaasi waa nuurka xijaabka xadiiska abi muuse sheegayey isaguna muslim baa saxiixa ku soo wariyey xijaabuhu nuuru aw innaaru low kashafahu laaxraqat subxaatu wajhi ma intaha ilayhi basaruhu min khalqih ilaahay xijaabkiisu waa nuur ama waa naar low kashafahu laaxraqat subxaatu wajhi ma intaha ilayhi basaruhu min khalqih ta kale ilaahay markuu sheegaayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeenkii leylatu lisra waalmicraaj iyo waxyaalihii uu arkay wuxuu allah yidhi laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa wuxuu arkay aayadaha rabbigii ee weynida badan buu arkay yacnii hadduu rabbi arki lahaa waa la sheegi lahaa aayaadka rabbi wax ka miduu arkay lama yidhaahdeen ya taa lama yidhahdeen marka maadaama yacni waxa weeye lagu gaabsaday inuu aayaadka rabbi wax ka mida markaa arkay waxaa laga qaadanayaa inaanu markaa rabbi arkin waayo waxyaalaha markaa wanaagyada ee habeenkaa uu la kulmay baa laga warramayey saasaan lagu sheegay saas aawadee calaa kulli xaal taas ayaa arjaxa culamada qaarna waxay soo noqleen ijmaaca saxaabada nebigu sala allahu alay wasalam ay ku ijmaacsanaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ilaahay arkin ba ahlucilmiga qaarkood ijmaac ku soo rareen sida daarimi ijmaaca ku soo naqliyey cuhmaan ibnu saciid addaarimi culamo badanna ay ka naqliyeen oo ibnu taymiya ibnu qayim iyo ibnu kasiir iyo ay ka mid yihiin iyaguna marka waxa ay ka naqliyeen ijmaacaas aynay tacaqubin aynay radinay aqbaleenna aynay tacaqubin cabdullahi ibnu cabbaas unbaa laga sheegay inuu markaa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa arkay isagana riwaayaadku waa iskhilaafsan yihiin riwaayada odhanaysa indhihiisuu ku arkay waa daciifa sida culammadu markaa xaqiijiyeen laba riwaaya marka isku soo hadhaya riwaayo uu itlaaqayo ru'yada wa khasa muxammadan biru'ya iyo riwaayo uu fu'aadka ama qalbiga ku qaydaayo oo muslim saxiixa ku soo wariyey ra'aahu bifu'aadihi marratayn oo fii saxiixi muslim ku sugan taana waxay culammada markaa muxaqiqiintii ay sheegeen sida ibnu kasiirka iyo culamo kaleba ay tilmaameen inay tahay min baabi xamli lmutlaq cala almuqayad oo laysku xambaaraayo oo markuu ru'yada itlaaqayo iyo riwaayada kale uu ku qaydaayo fu'aadka inay noqonayso yuxmalu almutlaqu cala almuqayad waana sida waxa weeye ibnu qayim iyo ibnu kasiir iyo albaani iyo jamaaco badan oo culammada ka midee ay maraan ibnu abilciz laftiisu waxaan filayaa inuu saa tilmaami jiray haakada marka dee wax markaa aan u suuroobayn bay iska dalbanayaan jikaar bay uga jeedaan qofka hadduu xaqdoon yahay daliilka keliya ku filan laakiin qofka haddaanu xaqdoonayn waxa la wax solayaa ma jiro markuu wax codsadaba kuma joogayo wax kaluu sii codsanaya wax kaluu codsanaya wax kaluu codsanaya ilaa inuu xujeeyuunbuu uga dan leeyey nimankan xaalkoodu waa saas wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen laa yarjuuna liqaa'ana aan ka baqanayn kulankayagaan la kulmayno ama laa yarjuuna aan rajaynaynin oo baabkeedii aad u dayso liqaa'ana kulankayaga aan markaa waxa weye rajaynayn bimacnaa sawaabka kulankayaga aan rajaynayn ama kulankay nala kulmayaan aan ka baqanayn lowlaa unzila ay hallaa unzila lowlaadani waa taxdiidiyo hallaa unzila maa la soo dejiyo calaynaa korkayaga maa lagu soo rogo almalaa'ikatu malaa'igta maana lagu soo rogo nala soo dejiyo ay noo digaanoo wax noo sheegaan iyagu oo rasuullayagoo ah amaba ay noo waxyoodaan aw naraa rabbanaa ama rabbigayo maanu aragno laqad istakbaruu waa kibreenoo waa iswaaweyneeyeen fii anfusihim nafahooda ayay markaa isku waaweyneeyeen
oo kibirkaa marka ay kula yimaadeen ama istikbaar laga xaaleeyo laqad istakbaruu xaqiiqe ee waa kibreen fii anfusihim xaala kown listikbaar xaal istikbaarku yahay istikbaarku dimniga ficilku ku jiraa masdarka ku guda jira laga xaalaynaya xaaluu istikbaarku kaa'inan uu yahay mid ku sugan fii anfusihim nafahooda mid ku sugan xaaluu yahay wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiiran weyn ayay xadgudbeen yowma yarawna ay udkur waxaad xustaa yowma yarawna maalintay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta ay arkayaan laa bushraa yowmaidin malaa'igtaa odhanaysa markaa qowl baa la qadaraya udkur waxaad xustaa yowma yarawna maalintay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta ay arkayaan waxay malaa'igta arkayaan laa bushraa yowmaidin ay yaquuluuna ay qaa'iliina xaalay odhanayaan bay arkayaan malaa'igta laa bushraa yowmaidin bushaaro maantadan lilmujrimiina mujrimiinta mid u sugan ma aha wax bushaarii mujrimiinta uma sugna oo bushaaro ma leh wa yaquuluuna waxay odhanayaan xijran maxjuuran yacnii xaaraan la xaaraantinimeeyey ayaa markaa ay ka tahay falaaxa iyo liibaantu ama bushaaradu ka tahay bushaaradu yacni waxay ka tahay yacni markaa xaaraan la xaaraantinimeeyey ama falaaxa iyo yacni waxay ka tahay xaaraan la xaaraantinimeeyey yacni xujirtum canha bushaarada xaggeeda waa laydinka manciyey xijran maxjuura ama xajarakum allahu canhu can ilfalaax yacni liibaanta ilaahay waa idinka xarimay xijran xaaraan buu idinka xaaraantinimeeyey maxjuuran la xaaraantinimeeyey marka maalintan culamada qaar waxay ku fasireen inay tahay yowma almamaat maalinta dhimashada culamada qaarna waxay ku fasireen maalinta soo saarka inay tahay labadaba markaysaga waxaa laga soo naqliyey salafkii qaar ka mida mufasiriinta qaarna waa doorteen ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa labadu isdiidi maayaan oo labada xilliba malaa'igta waa la arkayaa marka qofku geeriyoonaya nafta ku soo xaadirtee laga saarayo ee dhuunta ay soo gaadho xaalatulmucaayana xaaladda malaa'igtii waa arkayaa xaaladda markaa dambe ee la soo saarana waa arkayaa marka waxa weeye labada wakhtiba inay markaa caam ku tahay yowma almamaat iyo yowma albacsi ayaa marka waxa saxan oo labadaba marka ay arkayaan labadaba malaa'igtu sidaa ku odhanaya bushaare ma ridin qaydka lagu qayday mujrimiinta waxaa laga qaadanayaa mu'miniintu iyagu inay bushaarada yeelanayaan ayaa laga qaadanaya oo cidda markaa bushaarada aan loo bushaaranayni waa cidda marka waxa mujrimiinta aweeye laakiin cidda markaysa waxa mu'miniintii bushaarada waa yeelanaysaa waana soo aroortay iyadoo laynoo sheegaayo marka waxa weeye la soo saaro marka waxa weeye xaaladda noocaas oo kale ah in mu'miniinta loo bushaaraynayo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun marka waxa weeye mu'miniintii waa loo bushaaraynayaa xaaladda markaysa markaa la soo saaro iyo xaaladda markaa nafta laga qabanayo mid walba jannaana loogu bushaaraynayaa oo malaa'igtu u bushaaraynaysaa laakiin mujrimiintaan loo bushaaraynayn marka lilmujrimiina qaydka lagu qaydaa waxaa laga qaadanayaa mafhuum mukhaalafaha inay baxayaan ciddaan mujrimiin ahayn oo iyagu bushaarada ay yeelanayaan taasaa laga qaadanaya mafhuum mukhaalafa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin waqadimnaa waxaan u qasadnay oo bimacnaa waxaanu doonnay ilaa maa camiluu min camalin waxay sameeyeenoo camal ah fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay habaa'an boodh baanu ka yeelnay mansuuran la firdhiyey ayaanu ka yeelnay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk